أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. فاتحة سورة لغو مقعابي مكية المكي كسود دكتي، وآياتها هذون 7 آيات تضبع آيات وي. سورة إنو ميشان كقلينو وحالي إلى سورة الفاتحة يالي إلى هذا وحان مركاسي سوق آذاني 16 أيانو سوق آذاني أدى وحال كان وقبل آبنا 10 كيني 4 وحانا كبل آبينا فاتحة إنان مارتيا معنينو أيانو كبل آبينا سورة إنو ميشان كقلينو سورة قرآن كأوه الرئيسي أو سورة الفاتحة ويه قرآن صور شيئا انت كلموي تاي 10 كينو هورو 25 كلمي اهاد حروف تادنا وحي هادي بقول iyo 16 حرفي هادي wixii markaasi falaa'isheedana waxbaanu ka soo qaadanay iyo khilaafka xagga basmalada markaasi ka jira. hadda waxaanu qaadanaynaa faatixada markaasi tafsiirkeeda ayaanu qaadanaynaa. suuradan hadda marka waa suurad makiya, khilaafka inay maki tahay iyo madani tahay iyo wixii lagu jamciyay waxyaabahaasna waxa weeye 10 keena hore ayaanu soo qaadanay. suuradaha makiga waxa ay yihiin oo lagu yaqaana waxay ka hadlaan usulul aqeeda wax la yiraahdo. suurad kasoo makiya markaan qaadanayno waxay suuradaas ka hadli doontaa usulul aqeeda ay ka hadli doontaa aayado dhowr oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaaleynaya. النبوة والرسالة بعثك إيا قيامة إيا أحواله هذه أيها اللوغة ورحمة دونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد مهد ثابت كي سغناده ويحمده لله الله أي أسغناده. بسم الله إلهي مجي عيسان بركيسان يا الله الرحمن نحريست عام كان نحريست، الله الرحيم نحريست خاص كان نحريست. marka hada basmaladatan bismillahir rahmanir rahim waxay noqonaysaa macnaheedu hadii markaasi la soo gaabiyo atabaraku bismillah ilaahi magaciisa barakaysanaya. allah arrahmani naxariista caamka naxariista, الله الرحيم نحريس خاص كان نحريس. رحمانيدو waa naxariista caamka oo gaal iyo muslim adduunyada ay ku haystaan. ablaq min arrahim ya liira rahimina waxa weeye naxariista khaaska oo dadka muuminiinta maalinta qiyaamo khaaska ku ah weeye oo cid la wadaagsaneen ay tilmaamaysaa. bismillah biismil ma'bud bil haqq la bil baadil. الرحمن المعمم رحمته على المسلمين وعلى الكفار المخصص رحمته في الآخرة على المسلمين دون الكفار واي. أو كوضع مركز وحي نغنيسا بسم الله باسم المعبود الله حق الوعابد مجي عيسى ينكب بالعبانية بالحق حق الوعابد الله بالباطل بين الوعابد. إلهي حق الوعابد باطل المعابد وهي إلهي غير كيسا باطل أيال الوعابد وعبادة ما يسن متيسن. الرحمن المعمم رحمته في الدنيا إلهي سبحانه وتعالى نحريسيسا كعام يلي الدنيا ده على المسلمين وعلى الكفار المسلمين تيا كفارت. الرحيم المخصص رحمته في الآخرة على المسلمين دون الكفار. إلهي سبحانه وتعالى نحريسيسا كخاص يلا كوغوني يلي مسلمين تا مالين قيامه قالدنا أيسان كجرين وقال إلهي سبحانه وتعالى مالين قيامه إلهي أقول حريصا مايو. مركا سيداس وي الحمد مهد
thaabitun kii sugnaaday weeye xamdigi lilaahi ilaahay u sugnaaday waa jumlo khabariya oo loola qasdaayo asanaa cala allah ilaahay subxaanahu wa tacaala in la faanleeyo sida markaasi ay keenayso oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala maalik lijamiici alxamdi ilaahay inuu yahay xamdi dhammaantiisa midka milkiya uu iska yahay xamdigaas oo khalqiga ka imaanaya ama uu mutaystay xamdi dhammaantiisa oo ah oo allana uu ku mutaystay khalaa'iqda inay alla ku xamdiyaan subxaanahu wa tacaala lilaahidaas waxaa weeye waa calam cala almacbuuda layidhi bixaqin allahaas xaqa lagu caabudaayo calam isin oo calama weeye allah wax la dhaho oo markaasi ilaahay keyrkiisa marnaba lama sheegin mana soo aroorin marka waa calam weeye markaasoo waxaa la yidhaha acrafu lmacaarifa la yidhaahda allah lafdigaas lafduljalaalaha weeye alxamdu lilaahi marka waa jumladaas khabariye ah oo marka waxaa laga wadaa waxay ka kooban tahay mubtada iyo khabar jumlo khabariya markeeda lafdan weeye markaas inshaa'iya macnan weeye markaas maxaa yeele waxaa daliilo ah waxaa loola qasdayaa sane ayaa loola qasdayaa waa inshaau sanaa'i weeye marka xamdigaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay alxamdu lilah 5 suuradood ayaa markaasaa xamdigan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku bilaabay suuratu alfaatixa suuratu alancaam ayaanu ku tegi doonaa insha allahu tacaala waxaa kaloo xamdi lagu bilaabay suuratu lkahfi ayaa lagu bilaabay suuratu saba ayaa lagu bilaabay suuratu faadir ayaa lagu bilaabay xamdigaas marka waxaa la yidhaahdaa xamdu qadiim xamdigu waa 4 qaybood xamdigaas waxaa la yidhahdaa xamdu qadiim liqadiima la yidhaha xamdi qadiima ilaahay kalaamkiisu qadiim waaye ilaahay oo qadiima ayuu u sugnaaday waxaa la yidhaha markaasi xamdu qadiim liqadiima la dhahaa waa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala asagu naftiisa uu ku xamdiyo xamdigaas waxaa la yidhaahdaa xamdu qadiim liqadiim ayaa la dhahaa waxaa jira xamdi la yidhaahdo xamdu qadiim lixaadis xamdi qadiima oo markaasi xaadis makhluuq u sugnaaday ilaahay markuu rasuulkiisa leeyahay wa innaka la calaa khuluqin cadiimin nebi maxamedow dabeecad wanaagsan ayaad ku sugan taho ilaahay rasuulkiisa akhlaaq wanaagsan uu ku sifaynaayo xamdigaas waxaa weeye ilaan sana weeye markaasi asanaa'u bilisaani cala aljamiil weeye markaas waxaa weeye faallo oo lisaanka wax laga faaleeyo wanaag wax lagu faaleeyaa la yidhahdaa xagga luqada marka rasuulka calayhi salaatu salaam markii ilaahay uu leeyahay wa innaka la calaa khuluqin cadiimin waa xamdi qadiim oo ilaahay oo qadiima ayaa waxuu faalaynayaa oo wanaag uu ku faalaynayaa rasuulkiisa oo markaasi xawaadista kamid ahoo makhluuqa waxaa la yidhaha xamdigaas oo kale xamdu qadiim lixaadisa la yidhaha markii masalan hadda musanif oo kitaab bilaabayo waxaad aragteenoo basmalada bacdigeeda kitaab kasta alxamdu lilah ayaa lagu bilaabayaa xamdigaas isagana waxaa la yidhahdaa xamdu xaadis liqadiim ayaa la dhahaa xamdi oo ka imaanaya makhluuq ka imaanaya oo ilaahay oo qadiima u sugnaado weeye xamdu xaadis liqadiima la yidhaha dadku ayagu makhluuqa dhexdooda markay isfaalaynayaan oo waa mahadsan tahay iyo leeyahay oo isdhahayo dhexdooda ama wanaag isku sheegayo waxaa la yidhahdaa xamdu xaadis lixaadis aa la dhahaa xamdi xaadis ka yimiday xaadis kale u sugnaadoo makhluuqa marka hadda alla subxaanahu wa tacaala markuuna leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdigan waxaa weeye xamdu qadiim liqadiima la yidhaha alxamdu mahad saabitun kii sugnaado weeye xamdigii waa markaasi mubtada weeye markaasi lilaahidana markaasi alxamdu waa mubtada khabarkiisiya maxduufa markaas oo waxaa weeye saabituna lasoo qadirayaa lilaahidaas markaasi lafduljalaalahaasne khabarkaas oo maxduufka ay ku tacalluqaysaa alxamdu xamdi saabitun kii sugnaado weeye lilaahi alla ayuu u sugnaaday markaasaa laga sifayhaa lafduljalaalaha ayaa laga sifaynaayo allihii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina
makhluuqaadka kii milki ahay allihii rabbi alcaalamiina maaliki jamiici alkhalqi weeye khalqiga dhammaantiisa kii milki ahay ilaahay khalaa'iqda maase wallaah ilaahay asaa milkiya oo insi leh oo jinni leh oo malaa'ig leh oo dawaab leh oo keyrkeed leh weeye wixii nool iyo waxaan noolayn weeye marka mid kastoo ka mid ah caalamiintaasna caalam ayaa lagu magacaabaa oo waxaa la yidhahdaa caalamul insi yaa la dhahaa caalamul jinni yaa la dhahaa mid kasta caalamaa lagu magacaabaa saas weeye markaas marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala allihii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay xikmada hadda markaa ilaahay naftiisa ugu xamdinaayo maxay tahay dheh aa la yidhi waxay tahay xikmadaas khalaa'iqda ilaahay makhluuqi uu abuuray hadday tahay malaa'igta rususha ambiyada bani aadanka intiisa kalantood waxay ka caajiseen amay awood aysan u lahaynin xamdiga xaqiiqiga ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay inay ku xamdiyaan walidaa markaasi xamida rabb nafsahu ilaahay markaasuu naftiisa ku xamdiya asagu laakiin allah subxaanahu wa tacaala xamdiga asaga oo isku xamdinaayo waa xamdi oo markaasi naftiisa laa'iq ah weeye makhluuqaadkuna inay alla ugaga daydaan oy dariiqaas raacaan ayaa markaasay halkaas ayaa loogu jidaynayaa waxaa ilaahay u jidaynayaa ayaguna inay alla ugaga daydaan maxaa yeele ayagu lama imaa karaan xamdiga xaqiiqiga ah oo ilaahay iska leeyahay inay ku xamdiyaan ma awoodaan maxaa yeele alla subxaanahu wa tacaala waxau mutaysay cid soo koobi kartaa ma jirto oo in lasoo koobo alla waa ka wen yahay subxaanahu wa tacaala allihii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii milki ahay rabbi alcaalamiina murabbi alcaalamiina waa makhluuqaadka kii barbaariyo rabeeyey ahay na waa la yidhaahdaa allihii arraxmaani naxariista caamkaa naxariisanayey allihii arraxiimi naxariista khaaskaa naxariisanayay allahaas ayaa xamdi oo u sugnaaday macnaha waxaa weeye diraxmati waxaa weeye raxmaddu iraadatu lkhayri liahliha la yidhaah khayr oo la doono oo markaasi ahalkiisa la doono weeye arraxmaani araxiimi waxaa weeye waa laba sifo inay sifatay ficli naqdaanna waa iska bannaan tahay ayaa la yidhi oo ilaahay markaasi ayilmutafadilu lmuxsin waa midka ilaahay ku tafadulaaya oo ixsaanka u samaynaya khalaa'iqda weeye haddii masalan ba hadda lala yimiday arraxmaani araxiimi lala yimiday oo markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaalana markii hore lagu soo sifeeyey rabbi alcaalamiin waa tarkiibaa la yidhi raqbagelin weeye waa tarkiib oo bacda tarhiibaha la yidhi marka taas waxaa weeye waxay ugu kaalmaynaysaa addoonka ilaahay daacadiisa waxay markaasi ka reebaysaa macsiday ka reebaysaa maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ou dhahay ilaahay arraxmaan araxiim oo haddana dha ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaa weeye waa tarkiib oo bacda tarhiibaha la yidhi allihii maaliki yowmiddiini maaragtay lafduljalaalihi aa laga sifaynayaa allihii maaliki yowmiddiini abaalmarinta maalinteeda maaliga ahay oo mid wax walba milki ahay yowmuddiinku waa yowmulqiyaama weye allihii maaliki yowmiddiini abaalmarinta maalinteeda maaliga ahay hadda ilaahay markasta maaligow yahay laakiin maalinta qiyaamo cid milki sheegaysa ma jirto saa haddii ilaahay ilaa suuratu lkaafir uu tegi doono ilaahay wuxuu dhihi doonaa liman ilmulku lyowm yaa mulki maanta iska leh waa la wada aamusayaa markaasuu alla wuxuu lilaahi alwaaxid alqahaar ilaahiga waaxidulqahaarka ayaa maanta mulki leh oo khaas uu ku yahay oo cid hadda mid majaasiya sheeganaysa ma jirto laakiin adduunyada markii la joogo qofku waxa weeye mulkiga waxaan anaa iskale waxaas hebelaa iskale waxaa sidaas ayaa la leeyahy marka hadda maaliki yowmiddiin ay aljazaa waa yowmulqiyaama weye dikrigana waxa loogu khasisay mulki oo daahira saan horuu sheegna ma jira maalintaas oo axad uu leeyahay waatuu dhaha ilaahay liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar haddii
saas weeye markaas maaliki la yiraahdo markaasi maalintaas ilaahay subhanahu wa ta'ala mulki wax la sheegay mala oo markaas waxa weeye maaliki markii la dhaho macnuhu waxa weeye maalikul amri kullah fi yawm al-qiyamah maalikul amri kullah fi yawm al-qiyamah amarka ilaahay midka mulkiya waa dhamaantiis maalinta qiyaamo saasay noqonaysaa marka haddaba lafdiga maaliki iyo maliki inta waa la akhriyaa labada qiro oo laba qiro oo sabciyatayn ayaa ku jira oo markaas alifta meesha laga qaado wasfiguna markaas daahir waaye midda kale in alifta la sugo oo maaliki la yiraahdo sida hadda musxafka qirada xafsada ay tahay saas markaas labadaas qiro ayaa markaas la akhriyaa laakiin waxa weeye laba macno ay markaas ay kala yeelanayaan labada qira marka waa la isku khilaafo waxa la yiri in maaliki la dhaho iyo in maliki la yiraahdo yaa xeel dheera la yiri culimada qaar waxay yiraahdeen malik ayaa xeel in maliki yawmidiin la akhriyo qayda abi amr taasa waxa weeye caamsan oo xeel dheer malika ka xeel dheera la yiri maxaa yeelay waxa la leeyahay qiradaas ayaa markaas rajaxan oo markaas caamsan oo markaas ka xeel dheera la in maliki la dhaho waxa yeelay waxa leeyahay kullu malikin maaligay dhahan culimadu qofka ninka soo boqora maaligna waayahay oo qofka haduu boqor yahay maaligna waayahay maliki yawmidiin abaal marinta maalinteeda boqorka ahay macnaha marka saasi xeel dheeray ay yiraahdeen culimada bacdigeed sababtoo ah waxa waaye malik kasta maalig waaye wala aksar yiri markaas qofka soo maaliga oo xoola leh boqor ma ahan laakiin qofku haduu maalig yahay maaligna waayo waxna waa leeyahay haddana waxay culimadu yiraahdeen amarka boqorka amarkiisu naafidun ala al-maaligay dhan fi mulkihi qofka maaliga ah waxayse mulkigiisa ku fulayaaho ninkan boqorka ah hadii waxa weeye amar oo soo saaro oo qofka maaliga ah xoolaha leh uu ku soo saaro amarkiisu waa ku fulayaa laakiin taas cagsi ma aho waxa weeye qofkan maaliga ah maliga amar kuma soo saari kariyo saas daraadeed ayaa qirada in la akhriyo maliki ay xeel dheertay culimada bacdoodna waxay yiraahdeen saas haday tahay maliki markii la yiraahdo aliftaas oo ziyaadada ah aliftaas waxa waaye markaas si fadaa'il gaar ah ay keenaysaa maxaa yeela horay waataan quraanka oo soo marnay rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam waa tuu dhahay soo mar xadiiska ahay la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wal hasanatu bi 10 amsalha oo ziyaadadaas waxa weeye fadiila gaar ah waxay keenaysaa macnaha xarafki ayaa markaas xasana gooniye iska leh ziyaadada marka sidaas ayay markaas ayaduna ku leedahay marka saas ayaa aaraacdaas ayaa jirta oo marka sidaas oo inay maliki xeel dheertay iyo maliki ayaduna ziyaadadaas iska leedahay labada qiraba hadda qira sabciyatan waayo qof walba sidoo markaas oo akhriyo waa qira oo saxiix waayo marka intaas markuu qofku yiraahdo haddana wuxuu dhahayaa iyaaka adigaan nacbuduku caabudayna allah wa iyaaka adiga ayaa nasaciinu ka kaalmo dalbayna waxa meesha markaasi alxamdulillaah daas laga soo bilaabo ila basmalada laga min albasmala ila markaasi halkan laga soo gaaro oo macnaha waxaan ilahay ihdina siraat almustaqim inta la gaaro intaas waxa li waa maqulul qawl alayhi maqulun liqawlin mahdhufin waxa weeye markaasi waa maqulun liqawlin mahdhufin waxa la soo qadaraya horaba u qadareedaan in la yiraahdo qulu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin daha arrahmanir rahim daha maliki yawmiddin daha iyyaka na'budu daha saas way markaa oo waxa la yiri markaasi maqulun liqawlin mahdhufin waa lisaan horana u sheegnay marka ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala waxa dhahaysaan markaasi iyyaka ay nakhussuka bil ibadati iyyaka adiga ayaa na'buduku caabudayna iyyaka daan markaasi maf'uul oo muqaddama waaye lina'bud waxa loo hormariyay markaasi xasri si u faa'iideyso waaye inaan ilaahay wax qeyrkiisa la caabuday marnaba aysan jiri karin ayna jirin xasri iyo ikhtisaas waaye leeyahay wa iyyaka nasta'inu
ayaduna waa ku cadfan tahay macnaha waxa weeye laa nacbudu ilaa iyaaka ilaahu ma caabudayna ilaa adiga mooye walaa nastaciinu ilaa bika adiga cidaan hayna kaalmo ka dalbi mayno liannaka alxaqiiqu bitilka sifaat alcidaam ilaahay yow sifooyinkaas waaweyn adaa xaqiiqa ku ah in lagu caabudo adaa xaqiiqa ku ah in kaalmo lagaa dalbo adaa xaqiiqa ku ah cid kalena ma mudata weeye macnaha waxa weeye yaa man haadaa sha'nuhu allaha sidaan sha'nigiisa au yahayow nakhusuka bilcibaadati maxaa yeele ilaahay waa la soo sifeeyey marka hore oo ilaahay wuxuu dhahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaan arraxiim maaliki yowmiddiin ou dhahay ilaahay allaha marka sha'nigiisu saas yahayow cibaadada ayaan kugu gooni yeelaynaa iyo kaalmo dalabka weeye marka waxaa weeye waa taraqiyaa la yidhi min alburhaani ila alcayaana la yidhaah waalgayba ila alxuduur ayaa la yidhaah maxaa yeele hadda meeshaan waxaa waaye iyaaka markaasi khidaab weeye markaasi marka tacliimun min allahi weye ilaahay subxana wa taala addoomankiisa u tacliiminaya maxaa yeele addoonku markii ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiiqo oo ugu sheego xamdi inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mutaystay oo rabul arbaab uu yahay qalbi xaadirana markaasi waxa weeye isagoo la imaanayo qalbigiisu xaadir sidaas ilaahay u sifeeyo addoonku markaas naftiisa wuxuu ka helayaa muxarig dhaqaajiya in ilaahay rabbiga sidaas inuu qaabilo oo si kaamila uu ku qaabilo oo u weyneeyo marka sida qalbigiisa markaasi iyo lisaankiisa uu ugu dureeriyo sifaadkaas ilaahay qalbiga iyo lisaanka hadduu iswaafajiyo oo lisaanka uu ka sheego qalbigana waxa weeye uu uga ka dureersho waxa weeye markaasi muxarigaas ayaa xoogaysanaya oo insaanka dhaqaajinaya wuxuuna markaasi ku dhaqaajinaya in markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba oo alla uu ka dalbo inuu helo markaasaa ka bacdi ilaahay wuxuu leeyahay ihdina as-siraat al-mustaqiima saas dhahdane saasaa markaasaa imaahaysa marka alla subxaanahu wa tacaala in la faaleeyo oo sifaadkiisa la ogaado ka bacdi qofku waxa weeye muxarig ayuu yeelanaa wax dhaqaajiya in ilaahay wax walba oo markaas uu ka rabo inuu ka dalmo waxay ka mid tahay markaasi maqaamul ixsaankay ka mid tahay oo rasuulka calayhi salaatu salaam uu dhahay al-ixsaanu an ta'budallaha kaannaka taraahu fa in lakum takun taraahu fa innahu yaraaka saas weeye markaas marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala dhaha iyaaka adiga ayaa nacbudu ku caabudaynaa waana la tacliiminayaa wa iyaaka adiga laa kayraka weeye xasriyaa meeshaas ku jira ayaa nastaciinu kaa kaalmo dalbaynaa ka bacdi qofku markaas wuxuu leeyahay intaas macnaha ilaahay waa soo faaleeyey haddana alla subxaanahu wa tacaala munaajaadkiisoo galayo ilaahay ayuu cibaadada ku khasisay iyo dalabka markaasi waxa alla uu ka rabo ka bacdigu markaasuu ducaysanaya ducadu markaasay mustajaabo ay tahay markaasuu wuxuu leeyahay ihdinaa nahanuuni quuluu dhahdiyaa markaasaa la socda ihdinaa nahanuuni assiraada dariiqa ama wadada nagu hanuuni almustaqiima oo toosan ilaahu dariiqa toosan nagu hanuuni dariiqaas ilaahu nagu hanuuni siraad almustaqim ihdinaa nahanuuni oo haddii masalanba qofku hanuunsan yahay xataa waxa weeye zidnaa hidaayatan hidaaya noo siyaadi oo waadimnaa calayhana daa'imi hidaayadana waxaa lagu idlaaqaa dalaala wa tabyiin ayaa lagu idlaaqaa saas weeye markaas wain lam yaxsul wusuulunaa layidhi sida masalan ba waamaa samuudu fahadaynaahum macnaha waxa weeye markii luqada macnaha reer samuud fahadaynaahum taas waxa waaye bayanaa lahum dariiqiyaan u cadayna weeye labadana waa lagu idlaaqaa maca alwusuula layidhi lilkhayr laakiin hadda midaan labadaasaa laga wadaa ihdinaa nahanuuni assiraada dariiqa nagu hanuuni almustaqiima oo toosan siraadka xagga asalka waxaa la yidhaha adariiqu alxisiyu wadada caadiga ah oo la qaadayo laakiin meeshaan waxaa loola jeedaa diinta islaamka weeye isticaaro tasriixiya oo asliya ayaa ku jirta markaa maxaa la diinta islaamka waxaa lagu shabahay dariiq oo xisiya wajhul jamcuna waxa weeye mid walba waxa weeye maqsuudka lagu gaara oo diinta islaamka qofka qaata maqsuudki oo ilaahay ridihiisa jannadiisa inuu ku gaaro uu ku gaaraya dariiqan caadigaana meeshii markaas la rabay oo loo socda ayaa lagu gaaraya
waxaa la isticaaraystay ismu lmushabahu bihi ayaa mushabihi loo isticaaraystay ee loo caariyeystay. marka hadda aslu dariiq bisaad la akriyo macnaha waxaan dhihi lahay saad siraadana waa la bisiina waa la akriyaa. waxaa akriya markaasi qumbul oo hadda siraada ladaas laftirkeeda bisiina waa la akriyaa. laakiin hadda qirooyinka hadda mashhuurka wax lagu akriyo maaha. ihdinaa nahanuuni as-siraada dariiqa nagu hanuuni almustaqiima oo toosan nagu hanuuni. waa laga bedelaa markaas dariiqaas muxuu yahay ilaah si cadeynaya siraada alladina kuwi dariiqoodi ama jidkoodi nagu hanuuni ancamta aad u nicmaysay calayhim korkooda. siraada alladina kuwi dariiqoodi nagu hanuuni ancamta aad u nicmaysay calayhim korkooda hidaayada aad siisay. غayri lmaqluubi calayhim kasii bedel markaas kuwii loo carooday dariiqoodii kuwii loo carooday qayrkood wey kuwii loo carooday qayrkooda oo aan loo caroonin dariiqoodii nagu hanuuni. ama sifayso aad tidhaahday siraada aladiina kuwii dariiqoodii nagu hanuuni ancamta aad u nicmaysay calayhim korkooda kuwaasoo غayri lmaqluubi calayhim korkooda kuwa loo carooday qayrkooda oo aan loo caroonin. kuwa loo carooday yahuud waa sida nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska ku fasiray maqluubu calayhim alyahuud oo dhaa rasuulku. maxaa yeelay ayagoo shareecadii yaqaana ay taxriifiyeen. waladaaliina walaa kayra daaliina kuwa baadiyooba qayrkood ah oon baadiyoobin. daaliintu iyaguna nasaaro waayo walaaliina annasaara ha u dhaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam daaliintuna nasaaro waayo. maxaa yeelay si jahliya oo macnaha waxba ay haysaan aysan jirin ayay isaga cibaadaystaanoo nimankan hadda maaragtay masiixiyiinta ama kirishtanka ahu waxba ay gacan ku hayaan ma jirta. wax asara oo diin hoy haayaan ma jirtee wax ayagu iska samaysteen oo beenbeena ayay markaasay iskaga cibaado ka dhigayaan oo waxba ka jirin markaas. waa nasaaro. maxaa yeelay ilaahay wuxuu dhahay wa adalluu kasiiran wadalluu can sawaa'i sabiil waa tow dhahay ilaahay waa ku tegi doonaa haddii alla yidhaah. siraada aladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni ancamta aad u nicmaysa. hadda kuwa ilaahay u nimeeyey suuratu nisaa fa ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqan kuwa ilaahay yidhi waaye kuwaasaa laga wadaa. fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina wey. culamada qaar waxay ambiyada khaasatana loola jeedaa. qaar waxay yidhaha muraadku waxaa waaye asxaabu muusa wa ciisa ha laga wadaa qabla taxriif wa naskhi. laakiin sida horaa raajix غayri lmaqduubi calayhim kuwa loo carooday qayrkood ahay oon loo caroonin. wala daaliina walaa kayra daaliina kuwa baadiyoobay qayrkooda ah. daaliintu markaasi waxaa weeye maqluubu calayhim yahuud waaye daaliintuna nasaarada waaye. marka hadda waxaa waaye markii faatixada la akriyo waxaa la yidhahdaa aamiin ayaa la dhahaa. aamiintaas iyo markaasi qaybaha kale oo soo socdo suuratu lbaqara ayaanu qaadan doonaa insha allahu tacaala. hase yeeshee hadda casharkeen intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacala aclam. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.